saacadan aan taaganahay wixii ka dambeeyo askarigi ku rida xabad amar la'aan ku rido oo xabad cadow xabad aan ahayn rido saraakiishu waxaan faraynaa iyo laga bilaabo taliyaha oo taliyihiisa unuga iyo haddii taliyaha kooxa uu yahay inta iyo haddii taliyaha ururka taliyaha ururta uu yahay intaba nin mas'uul iyo askari inta ka dhaxayso wixii uu sharciga ka helaa horgeynina soo saas ma soo raali kama yidin xabad in la iska rido oo cunug sii seexanayay iyo qof oday ah oo 7 bari aan seexanin lagu duldirirahay oo ama aadi barakac ku dhacay oo qaxay oo tuulooyin kale iyo degmooyin kale aaday kuntu واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن أولا أذي الريال يا صاحب ريال يا ولا ريال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب نفتي نيتي دب وحاول دردار ما يا إلهي سبحانه وتعالى عبسدي سه أو أمد إلهي سبحانه وتعالى أدر دار مي دمان ومدي سودان ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إن إلهي سبحانه وتعالى لقى عبصده قفك بلا آلن كأه أما مسلم كأه وحا لقرب وحا وايو إن إلهي كحرنا حالات كستو iyo shu'uun kasta iyo waqti kasta uu joogo intaba meel kasta uu taagan yahay inuu Ilaahay uga baqo cabsida Ilaahay ayaa waxay ku siinaysaa wax kasta oo ay raadinaysid ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا قرآنك marka akhrisan in badan oo kamid ah ayadaas soo noqonayo Ilaahay wuxuu naga dardaarmay war hadhimanina ilaa aan dinkoo muslimiin ama ahno Ilaahay u hoggaansan oo muuminiin ah waxaan insha Allah ta'ala inaan ruuxi ciidanka u soo feelina aan ka hadlo waqtigana aan ilaaliyo intaas marka waxaan rabaa inaan uga gudbo xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu hadda aan akhriyay taqullu haythuma kuntum wattabi' sayyi'ati alhasana tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluq alhasan meel kastoo taagantahay Ilaahay uga cabso hadday xumaan ka dhacdana wanaag raaci way tirtiraysaa ummadda bila aadankood lana shayna akhlaaq wanaagsan kula dhaqan intaas waa xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam ayadiina waxa kuwa aan macnaheeyo kuwa kale tab wad garanaysaan inta badan macnaha ay ku salaysan yihiin haddii aan aadna mawduucaas ama aan doon inaan ka hadalno waqtiga ugu dheeraanayo laakiin intaas waxaan iska ridaynaa farul kifaayadii saarneed maadaama muslimiin nahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu wadadiisa saliimka oo mustaqimka aan ugu dilo intaas kadib aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa dhammaan saraakiil iyo ciidanba baada saxaafadda maamulka degmada iyo cid kastoo halkaan joogto walow de ciidamadii intaan in ka badan ay shaqo ku maqan yihiin ogna laakiin haddana intaana waxay hadda goobtan nasiib u heshay inaan ay soo istaagto garoonkan oo feelkan ay qayb ka soo noqoto ayada oo xeradana intii kale oo shaqo ka haysay ay jiraan goobo kale oo magaaladii aan ciidankaniga u jiro waxaan rabnaa marka awaamir yar kooban Ilaahay idinkiis iyo hadaladiidii ballanqaadkoodii qayb ka mid ah inay maanta fulaan Ilaahay idinkiis biidilaahi tacaala waxaan awal idinkaga mahadcelinayaa caqabadii adkeyd oo aan soo marnay oo aad ka cariiriga u ahayd oo dad dabcan nala dadna ah shakhsina oo naqaano laakiin maskaxdoodii waxay ku shaqeynayaan aqoon weynay ay nagula dhaqmeen oo ka mid ahayd in xeradan markii aan iska soo aruurnay magaalada annagoo u naxayno shacabkayga Soomaaliyeed oo deegaankan degan in lagu dhex dagaalamo inay guryo gubtaan in askari kale uu dilo wuxuu ku dilay uusan aqoonin arintaas annagoo xeerinayno ba waxaan isgelinay go'doon aan gacantanada iyo qorigan wadano iyo awoodda shakhsiga aan leenahay oo ciidan aan uga badbaadi karnaa waxaan isgelinay muddo 2 usbuuc iyo maalmo ah muddo 8 bari ah waxaan ka warsugaynay dadka aqligoodu saan ogaa oo u dhaqmay inay fikiraan waxaan leenahay culimo waxaan leenahay odayaal dhaqan waxaan leenahay hooyooyin waxaan leenahay urur dhalinyaro waxaan leenahay aqoon-yahano deegaankan ku nool waxaan leenahay adinku isceliyo bal kuwaas iyo kuwaan inay wada hadlaan ayaka aqligoodu uu shaqeeyo ciidamadii afka laga soo galay iyo xerada meel kasta laga soo istaagay ay ka bixiyaan
kadibna dhahdaa war maxaa idinka maqan oo aragti nagu dilaysaan nagu godoominaysaan dhibaatada u samaynaysaa waxaad ummaddan u haysaan sheego dowladda Soomaaliyeed waxay ummaddan u heshay seegi iyo saraakiisheeda iyo ciidamadeeda arrintaas ma dhicin oo ugu dambeyntii waa garan kartaan soo waxay xabadda bilaabatay xaaladda aan ku sugnayn iyo waxay ku bilaabatay nin juwaysti la yiraahdo oo aaqil ah baan kalimad fiican ka helay hadda ka hor oo nin kaftamo waay wuxuu yiri sanadkaanay tii dhacday waxayna hore inaan cunaan ku sigan ayaka oo markaasi waxay ahayd warbiyo barakadaha noogu jiraan maxaa go'ay qorihii darsooyinka idin dhisan duusado geedaha kugu dhisan raashin ku karsado ilaa xad waxa dacna inaan dagaal ka maarano arrinta ayada ahayd oo annaka caqabadooda meestay maxaa lagu daray caqabad shacabka Soomaaliyeed oo hubka u qaadnay oo u dhaaranay oo aan diriska u xiranay haddana lagu furay oo aad garan kartaan oo in isgaarsiintii laga jaro shacabka Soomaaliyeed oo qof $1 ama $2 ay ku jirto telefoonkiisa oo cunugiisa oo gaajo habeenkii la siixin waayo habeenka dhow ku yahay ila dadka ogtiin hawa lacag ah hawa dadka lacag ah arrintaas dhacday maxaa ku xigsaday korontadii haddana in la jaro intaas markii kadib cadow noocaas shacabka Soomaaliyeed meel intaan oo askari ah Soomaaliyeed oo ciidamada qaranka oo qalabka siday kamid ay taagan yihiin inaad dhibkaas ku fiirsan suurtagal ma ahayn inta isxakameynay wixii dambi oo looga yimid Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga cafiyo hawsha aad samayseen oo waajibaadka ahayd oo geesinimada lahaydna abaalmarinteeda iyo dalaacadeedana dawladda Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed baa ballan qaaday آخرنا إلهي سبحانه وتعالى وحاول يديسنا إنه موجود درو حسنات كيس إلهي موجود درو بدم لا في موجوده تاسع إلهي يديسنا صوته واحد واجبة أو واحد عن دينسك أقعد تبع سنة شعب كده بالبلسين ما أنت وحكفى يدين أو أم كفى يدني إن شرفت قرن منا سوق عاد متو كل سوق عاد متو رجعنا لو دعي ومساجدية لو دعي مساجد اللي دعي وكور بتاع سوما مساجد بلحة وعلماء جوكتي ما أنك العبوا قبل الدعي من يا ما أنك أوتقني أو نتاجر الدعي من ما نورا وحي على السميسين يعقبد اللي بيسمي هيلك أو سميسين يعرفتوا ذي أويسي أو قاعدين شنو كهستان أو وعين حرية دي أساسين بي لو دعي دعاء أسنا وحين لقب وقف كستو أو رأي ياسي مسكح لاسي أركتيس إن لقبي وأنا ما أسير شعب كان الصوماليات وحرر من الشعب كان نوع عاسة أو صاد دولة من الجعل أو قفك وناك سمايو وناك أو سمايو أو بدو عيني أو قفك حمام كو سمايو حماتذ كو سمايو كو هواري وشعب مسلمين وشعب ولالو يهويو يدو يأبتئة وددك آن دولة دو أحد ددكاس أيضا وناك وحان أهل من نقدقة dadkaas wanaag baa naga deeqo waxaan rabaa dadkaas wanaagooda marka waxyaalo qaada ayaa arka oo ka dhex imaanaya ciidamadana dawladda waxaan rabaa arrintaas ninba ninka kale la joogo midka codkiiga maqlaayo iyo midka halkan fadhiyo waajibkaas inuu qaato maxaa ka mid nin baa wuxuu ku leeyahay waxaad maqlaysaa adoo nabad ku jif war maxaa dhacay qori baa daraa dagaalka iga cilado waayay وبراوينا ومدحها baa leedahay xara jirta ka baxsan magaalada oo UK leeyahay tan aan joogna qorigaas oo in haduu halaysan yahay aan mas'uuliyiinta u sheegto oo meeshaad ku baraaweynaysa meel shacabka Soomaaliyeed dhagahooda iyo maskaxdooda ay dhibeen ma aha inay noqoto ma laba xabada arinaysa soo qiimo kuuma fadhido soo tii cadawga ka dilaysan ma warshad baa leenahay gaar oo balaxa ku dhax taalo وعيدنا إليه ميتال صوح قياس يطلع يكوس على معهن أو قرن كسوماليات بل كسومالي ورشده ودمت عليه لسوء يبي أم داخل وهل الدولة إنه كان ما يا الله ساكك حبض أكا هدان كالبحيو أو مكدا هذه بارودة قفك حبض لماذا كسو علين كرياوي وين بعد كده يلكرو أريدها دولة الأهان خلب بنوتها هاي يقسارو حبض أصدعيسو شعبك Soomaaliyeed oo duceynayna oo hooyada iyo cunuga iyo odayga iyo aabaha lana iyo culimada lana oo nooc walba lana uquba nooga iimaanayso waxaan rabaa marka
arrintaas saacadan aan taaganahay wixii ka dambeeyo askarigii ku rida xabad amar la'aan ku rido oo xabad cadow xabad aan ahayn rido saraakiishu waxaan faraynaa iyo laga bilaabo taliyaha oo taliyihiisa unuga iyo haddii taliyaha kooxa uu yahay inta iyo haddii taliyaha ururka taliyaha ururta uu yahay intaba nin mas'uul iyo askari inta ka dhaxayso wixii uu sharciga ka helaa horgeynayna soo saas ma soo raali kama yidin xabad in la iska rido oo cunug sii seexanayay iyo qof oday ah oo 7 bari aan seexanin oo lagu duldirirahay oo ama aaday barakac ku dhacay oo qaxay oo tuulooyin kale iyo degmooyin kale aaday oo soo noqday markii uu gurigiisa sal ka dhigay hadduu xabad bay ka ugu dulrido soo naxdin kale ma soo matiiba soo noqotay ma waxaan rabaa arrintaas waajibaadkaas inaad qaadataan u dhawa nuglaataan ilaahay subxaanahu wa tacaala ooga cabsataan sharcigana ilaalisaan shacabkiina Soomaaliyeedna aa u turtaan guul baa ku jirtaan ku taaganahay gobonimo iyo geesinimo haysataan sharaf iyo karaama haysataan shacabkii Soomaaliyeed baa idin jecel waxaad aragtay oo ciidamadii fiiri ninna waa la abaarayay ninna waa loo duceynaya marka ay ducada dhinaca kale hoo celin dadka waa muslimiin gacmaha waxay kor ugu taagaan way helayaan fiiri gacmaha waxay kor ugu taagaan way helayaan waa suurtagal hadda koor baan ku dhacday hadda koor baa waxa dhacday magaalada Buulaxaawo ee magaalada badan gobolkan kamid ah intiisa dawladdu ku meelgaarkeeda carrada soo gelin maleeshiyaad qaba ilaa joogi jiray maleeshiyaadkii dadkay dhibeen dadkii waa nacay ilaa Soomaaliya dhan baa dhaho dadkii waa nacay Muqdisho u darneed dadkii waa naceen waa dhibaataysteen shacabka Soomaaliyeed isbaaro qof la iska dilo xumaan dagaal iska socdo ujeedada la'aan ah dadkii Soomaaliyeed gacmaha kor u taageen dadka waa muslimiin ilaahay uu kuwana dhaafay laakiin maysa dhihin ilaahay wax ka khayr badan noogu bedel maysa dhihin maxaa lagu bedelay shabaab mid haysto oo kurki kow qofka halkaas dibkiisa dhigay qofka mid ducada waa la aqbali laakiin ay kale xilligaas maysa dhihin ilaahay kuwana dhaafiyo ilaahay wax ka khayr badan noogu bedel maysa dhihin laakiin kuwana ducada la aqbalayo waa muslimiin shaki iga jiraani waxaan rabaa marka waa naloo duceeyay ducadii naloo duceeyay oo shacabkan Soomaaliyeed ay noo duceeyeen oo dal iyo dibad noogala duceeyay oo buulaha wala barwanka u tahay oo culimadoodii iyo caamadoodii ay ilaahay bariyay kur gacmaha u taageen saqiir iyo kabiirba waxaan rabaa ducadaas inaad sii dhamaystirataan laakiin wax caqabad ah oo kale oo shacabkaas ku timaado inaan laga shaqeyn askarigi warka aad u dhigeysto xilli adag oo aan shabaab la diriiray oo ciidamada xaquuq ay salahayn oo mushaar lahayn oo garaam lahayn oo wax xaq ah oo dawladda ay ku leeyihiin aysan jirin ragga oo soo shaqeeyay halkaan joogan oo balad degmadan ay haysan shabaab ay haysteen oo 30 kilomitir geediyo shabaab ay dowlad u joogeen oo luuq haysteen oo koonfurta Soomaaliyeed kala bar ay haysteen xaalad adag ku soo shaqeynaa jirto walaas askariga sax ay khalbo dhabarka marsan jiray inta gacanta qabsado baan dhihi jiray anaha la ilaahdo waxaan Soomaaliya هذا هو شيء على كدوة أسكري دولة باتها حقوق بالله كي عن حق لهنا حرقان هذا هو شيء بلاوته حبنا وبلاوه الجربار وكسر اعتصامه هو جديد حرقان إيمان إن شاء الرحمن الجبار ده تيجي جوب كستو هذا بوجرس وش تيجي يركض بتيجي لوق بتيجي ولو لوق حالة كجرتو وعرفنا حالة بس إلهي إذن كيس in ay ku xalismato sida ugu qurux badan oo ugu wanaagsan oo dhiigga shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamadana isku daadanayo ay ku akaatay intii hore ilaahay idinkiis ragga jooga mas'uuliyiintaana waa wada hadalnay dhinac kastaba odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha inaana dhiig dambe walaal la daadinin hawshaasna xal loo helaan ka ku ballan waana nooli insha Allah taala dhammaan marka ciidamada gobolka saan u ballan qaadnay oo dawladda qorshe u soo dirtay dib u habeen sax ah iyo ciidan wanaagsan oo xaquuqdiisa dawladda ka helo waajibaadkiisa ay guto ba sameynayna ilaahay idinkiis oo ragiini aan halkan ugu imid dhiig iyo kuwa kale gobolka joogo dhiig cusub oo hor leh oo dawladnimo lagu shubay ilaahay idinkiis